السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كينا افرح خليف. ويلكم مان. عاو أحباك خلطن معك معاك خلطن عاو. بسيشن كا خلطن. وليga أنت مليك مرين وليga مريمانت. معناها دنكاس كانوا يا دنكاس اللي جعلها صوبتان وجعلان وحكى المآن يعني حاجة إسلهيسي حاجة لين معناها حاجة ساخر كجرو فهمتي المهم وكلها إفراح خليف thank you so much يوتيوب كداونة سنوا إفراح خليف oh my god أدي هذا وفرح سناي إن أنا مركل عنك صوم مخضي channelك ولا شيء ذا إفراح خليف وحنا كان أدي هذا ومهد علنا دمان أصحاب تيدا أو هالكار قصوي عبي أما channel كان كلك عيي دمانتي لو ما سنتين إفرح waxay ku dhawday 20 kun insha Allah waan gaarsiin doonaa mardho sidoo kalena marta idin ay soo dhaweeyday thank you martiyo asad caawi inoo yahay soo dhaweeyahani laga arkay soo dhaweeyo xogaa waa ogtihiin meel marka marta ku taa wax xishoona ma fahamtay warkaaga waa yaraana marka warkii waa yaryahay marta ku afasha waa kugu qaadana caaw waxa ka hadlayna su'aalihi xalay aan soo gudbiyo oo ahaa waa tuma ifraax ama Q&A ifraax ayaa waxa soo weydiiseen dhowr su'aalooyin jawaabteed muuqaalkan ka arki doontaan insha Allah laakiin dhanka su'aalaha ana idin joogo ana idin akhrinayo in xariis lageeya ma wixii soo qoreen la akhrinaan wax dheeraad mugdaray jeebkiin mugdaray wixii soo akhriyeen la halkaan aan ku haya insha Allah anigana waxaan rajeenayaa sida ay tahay su'aal walba in aan uga jawaabo waayahay ifraax waxay jeclaysatay in ay iskiin barto ama wax aad ka ogaatiin waxay tahay waxaad wax ku kala ogaa kartiin kaliya su'aalo aad soo weydiisaan oo idin ay idin kaga jawaabayso marka su'aalaha aad dhan commentiga shal aad ugu soo qorteen ana u akhrin doono wayn ka jawaabaysaa waa sidaas insha Allah ka jawaabaya okay diyaaratahay fiican ifraax khaliif kulay way badan yihiin dhowr su'aalood waaye wiilkan wiil hooda daacad qofkan hooda daacad oo qoran gabar waaysa ila tahay hooda daacad waxay ku tiray walaal waxaan ku weydiinaa 5 su'aal kaligeeda 5 su'aal qabto okay aan ku kala dhigo su'aash koowaad oo gabadhaas ay ku soo weydiis waxay tahay magacaaga saddexan horta da skin baro am magacayga saddexan oo ni sheego magacayga saddexan waxa waaye ifraax khaliif ali oh my god okay su'aash labaad waxay ku soo weydiisay xagee ku dhalatay waxa ku dhashtay Muqdisho gaar ahaan Madiino maldo hees Madiino loo heesa jirta ayaa Madiina malabina ayaa Madiina malabina sitaacada nacnacina su'aal saddexaad oo gabadhaas ay ku soo weydiisay waxay tahay isla xageed ku barbaartay waxa ku barbaaray Boosaaso caday Boosaaso waayahay su'aasha afraad ee gabadhan ku soo weydiisay waxay tahay xageena wax ku soo baratay horta Muqdisho wax baa ku soo bartay ilaa dugsi hoose waa ku bartay laakiin ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare waxa ku soo qaatay xagee Boosaaso maana Boosaaso ku soo baratay Muqdisho ku soo baratay okay waa ku qanacsan oo malaha su'aasha jawaabteeda okay su'aasheeda dambeeso waxay ku dhahday waalidiintaada labadaba ma kula nool yihiin insha Allah waxaan sugayaa waa jawaabtaada macnaha waalidiintaada ma kula nool yihiin macnaha waalidiintaada ma ku nool yihiin way ii nool yihiin waalidiinteeda ilaahay ha ii dhaafo amiin insha Allah amiin sidoo kale su'aash xigta waxa soo qoray wiil loo magacaabo Saciid Saleeman wuxuuna ku dhahay walaal ifrax Malaysia maxaad u joogtaa ma waxbarasho mise shaqo Malaysia horta waxa u joogaa arrimo qaas ah sida safar amal waxyaalahaas u joogaa marka okay safar u joogtaa okay su'aash xigta waxa soo qoray Cabdiqani Zami wuxuu ku dhahay ifraax khaliif please asadxaajo iga gaarsi salaam marka video la sameynayso waa maqluub sadeeda akhris gaarsi hada sif ayuu u lahaday wiilkaaseti asad waa maqluub Cabdiqani ma qad salaada Cabdiqani salaadan dhooya salaanta Cabdiqani thank you so much waa kan commentiga qof akhrinayo waa qof salaanta aad u waday waa ka qaaday aad iyo ma santahay Cabdiqani okay su'aash xigta waxay tahay waxa soo qoray Moha Dhibac hay Moha Dhibac Moha Dhibac wuxuu soo weydiiyay ifraax mustaqbalka maxaa ku haminaysaa sidoo kale maxaa ka codsan lahayd asxaabtaada
mustaqbalka horta waxaa ku haminayaa in aan noqdo youtuber weyn sida Asad Xaaji oo kale. Oh my god, insha Allah ilaahay ku kaso ay marka asxaabta waxaan leeyahay idinka ayaa igu karab geli karo inta heerkaas inaan gaaro insha Allah idinkana garab weyn ayaan iga baahanahay ina garab istaagi doontiin ayaa mar walbana rajeynaya insha Allah way garab taagnaan doonaan anigana waan ku rajeynaa mustaqbal fiican. Okay, su'aasha xigta waxaa soo qoray wiil lagu magacaabo Yaasiin Artist wuxuu ku soo qoray ifrax waxaan ku weydiiyaa abeer cadde walaalkaa miya walaalo waay ayaa maqleen yaa ka maqasho walaalo horta intaas kaftana iga tahay abeer horta walaalkay waxa ma dhaamo waa wiila isbaranay oo walaaltinimo naga dhaxeysay wanaag intaba marka walaalkay oo hooyaday aabahay dhaleen wax ma dhaamo laakiin dad inta isku baranay ayuu yahay laakiin qofkan kaliis ma dhowr qof oo abeer ma isla dhalateen dhahay waa arkay maxay ku keenay wallahi ma aqaano afkeena waa weyn iyo ama sidoo afweynida afweyna amal ma jirto ma afweyntaay bas ogaay in af balaaran ay baaf amal ما دلقة ما يجي جروسا دلقة. Okay, سؤال حكتا وحاسو قري مسيس كفتن جوار مسيس كفتن راعي كل لو سؤالي ودا سؤال شو هو رأس وحكي كده هذا افرح ملو خبا ما يا أبايا ليه ما قبل Are you single? No. الله راح آخر نوسا الله راح آخر نوسا مركز ما والله بالله ريم رجل هذا مودي ليه ما قبل ولا شيء I am single ويا هاي سدوا كل سؤال حكتا هورا كوسويدي ساندري مايو وحين تاي wax ma soo baratay ilaa heerkee baad gaartay ama si kale aan u iraahday wax barashada ilaa halkee gaartay dugsi sare dugsi dhexe ama jaamacad wallahi horta jaamacad wali ma aan bilaabin laakiin ilaa iyo dugsi sare waayahay su'aasha xigta waxay tahay waxa soo qoray Xasan Biyo wuxuu ku soo qoray ifrax waxaan ku weydiinayaa sababta aad u timid dalka Malaysia law su'aal qaba ku su'aashaas ka jawaab horta dalka Malaysia sa hore usoo sheegay safar ayaa ku sii ahay marka waxyaale oo waxa uu imaaday oo iqaas ah sida process amal waxyaalahaas uu imaaday okay isla su'aashiisa labaad wuxuu ku su'aalay gobolkee ka timid ii sheeg walaal Soomaali waaya marka Soomaali joogta gobolkee ka timid Puntland ayaan ka imaaday aniga gaar ahaan Boosaaso gabadh waa reer Puntland Okay, su'aasha xigta waxa ku soo qoray enjoy peace and PUBG. Wuxuu ku soo qoray walaal Armeena iyo Asad maxaad isku tihiin? Armeena iyo Asad wallahi waxa isku naanay dad walaalo ah oo walaaltinimo ka dhaxeyso. Haye. Marka wakaahe. Waa jawaabtiis ma? Waa jawaabtiis. waayahay su'aasha xigta waxa ku soo qoray Hotman qof ay ugu qoran tahay wuxuuna ku weydiiyay adi ma lihid miya Instagram waa leeyahay horta dad badan ay soo weydiiyay ifrax Instagram ma lihid miya Instagram kaada noo soo saar insha Allah horta fiidiyoyaasha xigo aan soo saari doonaa laakiin Instagram waa leeyahay way leedahay laakiin yani sawirku mu jiraan macnaheedu ma diba sharax rabtaa si uu soo yacna marka saas okay waxay diidantaa meel cidla inay imaadaan oo waxba ka weydaan waayahay su'aasha xigta ifrax waxa ku soo qortay gabar lagu magacaabo Amal Yusuf waxay ku dhahday xageed ka timid markii hore Malaysia maxaad hadda u joogtaa su'aalooyin qaar waa isku mid macna hore u jawaabtay hadii su'aasha tan amal ay tahay macna hore jawaabteedu u bixisay waa gudbeena sa fiidiyoga ka arki doontaa insha Allah waayahay sidoo kale gabar Hibaaq Maxamed la dhahay waxay ku soo qortay halkeed ayaad ku dhalatay macna halkee ku dhalatay waxbarashada heerkee ayaad ka gaadhay waa maxay riyadaadu maxaad jeceshahay sidoo kale su'aalahan waa isku mid su'aalaha isku eegayeen horta labadeeda su'aalooda ugu horeeyay xagee ka imaaday halkee ku dhalatay iyo horta aniga macna su'aalooyin qaar waxa jiro oo isku mid ah halkee ka imaaday iyo halkee ku dhalatay halkee ku soo barbaartay iyo waxbarashada macna dhamaan waa isku eegayeen marka wax soconeena ma inta soo soconeena okay su'aasha xigta waxa ku soo qoray wiil lagu magacaabo Yaxya Aadam wuxuu ku dhahay ifrax ma meeq jir ayaa tahay macnaha
hablaha ma la weydiiyo taa صح asla isku jawaabay ميا أصل السجواب asla isku jawaabay hablaha ma la weydiiyo أصل جوابتي صار وقاتنين كاسيتي asla weydiiyo macna jawaab mal siyaama ميا أصل اسكو يعني جواب. أبلا لما ويديو بيرد دأدوده ha مركا كسيس علينا صح ma ina sheegtid waay sababtoo ah su'aalo ku soo qoray oo ah da'daadu waa meeqa ma fahanti marka haddana hablaha lama weydiiyo yiri Asaa isku walaalkaygi jawaabay. horta maadaama ii soo horumarisay da'daada waa meeqo oo haddana ay leedahay hablaha lama weydiiyo waxa fiicnaan lahayd inaa xoogaa ay weydiinayno ugu baraya okay isku sheeg waay shafaad camal aniga horta waxaa jira 25 sano laakiin idinka intay ku qiyaasi leedahay commentiga aan ka arka da'dayda saddex meelaas ku qaasa okay oh my god su'aashan waxaa soo qoray Faaduma Cadde waxay soo qortay 3 su'aalood صح haday kuwa hore ay u qaab egiin waa ka soconaynaa صح kuwa kale ma fiirinaa su'aasha ugu horeysa waxay ku dhahday waalidiintaada miyaad la joogtaa hadda waalidkayga lama joogo keligay ayaa jooga Malaysia waayahay Malaysia maxaa u imaaday hore u hore jawaabtay ayaa ugu soo jawaabay okay su'aasha saddexaad waxay ku leedahay meeq wiil ayaa kula dhalatay waxay ila dhalatay laba wiil la wiil okay waata Faadumo jawaabtaada inaad ku qanacday ayaan filaa gabadhaas ayaa u dambeysay kulli way badan yihiin su'aalaha way badan yihiin waxaan dareemaynaa inaan muuqaalka u dheeraaday insha Allah ifrax waxay kasoo sameyn doontaa part 2 haduu ilaahay insha Allah intaas ay su'aalaha horta aad ay u badan yihiin inta aad aragteen commentiga hal fiidiyoona wax lagu dhameyn karo ma ahan marka waxaa jeclaystay inaan part 2 ka soo sameeyo aniga walaalkay Asad mar labaad ni soo wakiisha la aan la waay aan la aqrinay ma fahant aan la aqrinay marka insha Allah part 2 aan iga soo sameyn doona su'aalaha intii haray insha Allah Asad waxaan leedahay asxaabteeda wallahi aad iyo aad ugu faraxsanahay soo hawlku sheegaynaa channelkan wili aan dhex joogo ma fahantay marka sidoo kale su'aalahaas aad soo qorteen ayaan ifrax aan si weydiinay maadaama ifrax aan idin dhexe ma fahanteen Asad ayaa u wakiishtay inuu i weydiiyo wakiil shaway idinkan oo soo wakiishtay waa soo wakiishtay been mishii karto ana halkan u joogo ma fahant part 2 ayaa suglaanahay insha Allah part 2 waxay noqon doontaan isla su'aalaha aad soo qorteen jawaabtooda kulay waxyaabaha qaar isku eegin laakiin kuwa soo socdo insha Allah ma isku ekaan doonaan wala kala saari doonaa insha Allah waxaan iga sii tagi doonaa sidaas iyo nabadgeliyo waxaan leeyahay muuqaalka xigo sidaas iyo nabadgeliyo bye bye